warmurtiyeedka wadajirka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Eritrea mudane Isayaas Afwerqi waxay kulamo wada tashi oo 2 maalmood socday 13 iyo 14 bishan December ee 2018 ku yeesheen magaalada Muqdisho Soomaaliya labada madaxweyne waxay wada hadalladooda ku yeesheen Villa Soomaaliya waxayna ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyada oo si dhow la isaga kaashanaya dhammaan dhinacyada danta u ah labada dal sida ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab madaxweynayaashu waxay ka dhawaajiyeen sida ay uga go'an tahay in la dardargeliyo iskaashiga geeska Afrika iyada oo xoogga la saarayo iskaashiga heer gobol ee dhinacyada horumarka horusocodka iyo barwaaqada madaxweyne Isayaas waxa uu bogaadinayaa soo dhaweynayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu dhisayo laguna tayeynayo hay'ado amni oo Soomaalidu leedahay kuwaas oo awood u leh in ay damaanad qaadaan nabadda iyo amniga dadka Soomaaliyeed ay astaahilaan iyaga oo si buuxda u garowsan baahida loo qabo in la helo hanaan lagula tacaalo halista casriga ee argagixisada iyo saboolnimada labada madaxweyne waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuuridda iskaashi xooggan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika labada madaxweyne waxay isla qireen inay jiraan caqabado badan oo ay tahay inay si wada jir ah xal ugu raadiyaan sidoo kale waxay ku heshiiyeen in ay mideeyaan taageeradooda iyo dadaalkooda wada jirka ah si loo xalliyo caqabadaha ay labada wadan si gaar ah iyo si guud ahaanba u wajahayaan madaxdu waxay isla garteen in iskaashi heer gobol oo waxtar leh uu muhiim u yahay ka gudubka dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka ee uu gobolku wajahayo labada madaxweyne waxay garowsan yihiin in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed iyo gobolka guud ahaan isku day kasta oo lagu carqaladeynayo dardarta ka socota gobolka waxay shakil aan curyaaminaysaa horumarka Soomaaliya ee ka sameynayso dhinacyada nabadda iyo dib u heshiisiinta madaxdu waxay ka midaysan yihiin ka hortagga faafinta xog kasta oo halis ah raad aan lahayn siyaasadina dabada ka riixayso waxayna dhammaan ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waa mahadsantiin